okay telefoonka cakan waxaa igu jira inaan la idhaha maxamed ku magac ananesiisna maxamed barawani oo Libya jooga waqtigan waa 3 habeenimo waqtiga Libya marka telefoonkana si macaawi galay marka waxaan doonay maxamed inaan ka wareysto axwaashiina sida tahay Libya inay dad Soomaaliyeed ku dhibaatoodeen mudaharaadka ka dhacay Libya walaalo axwaasha Libya sidoo kale qabtan muuqata Soomaali badan oo qaxantiya ayaa ku nool dibeeto walaalo Soomaalida badana oo soo kala gaadho qabnadana imika Soomaali badan oo dib soo gaartay jiraan qaar wali gurigii ka soo baxan oo wax dhib soo gaarnay jirtaan haddana iyo saas tahay waxa ugu buuxin imika Soomaalida soo gaadho waxa kamid ah iyadoo Soomaaliba ma aha Afrikaan midabka madowga leh inaan dibadda usoo bixin oo aan soo gaari karin dukaanka oo si ay wax ugu iibsadaan waayo dadka u dhashay oo laga dhacay waxaa jira Afrikaanka amba madowga waxaa jira dad shaqaale oo odaga soo saftay saddex wixii waa la arkaba la aashanayo waxaan kula koodeynaa inuu telefoonka internetku Libya ka shaqeynayo oo la xiriirin dadkii Soomaali joogan dadka dibadda jooga والله تلفون كين توضيح عاد من تقتيل قارن موضوع على هذين كيس على صندوق عشان كده ميل ولا هذين الميل أيوة نفس الكلام صبح لي حديثي فيك ما هوش غيره أنت رسول ما هو نحس ولا صور فرد الجويت ولا حين إنك لا ما مدو مش كون هذا مركا إن هداز إن دينا إن واحد تلفزيون كي واحد إذا عادها wararka ay soo gaaray ma wararka dawladdu ma idaacada dawladda mise jasiiriyada idaacada kale ma daawateen idaacada kale oo daawanayo dawladda kastoo ka shaqeynayso xabaa dawladda qowtay waxaas laakiin idaacada kale daawasay jasiiriya carabiya seenan waan gartay marka say ku nooshin hadana waxba iibsan karin dibadda bixi karin noloshiina waan kee markaa والله أنا أشهد والله مش كده قفت مدوي تذكر كود الشعية ومركا واحد سود طبعا كور مثلا عندي بطلب من علاقتي يوم حاجة واحد يستعملها يعني حاجة هذا قوة الترورجي في الاستيزاد راد أنه قلنا مركز وحاول مالهن مركز من سنة واحد من قبضة أنا مربرت كانوا زي رفران وقت ما وقت كاسناي أسكت في كم يعني بيقول لي يدكوا هيا يا لو خبصت doona ama meel ugu baar doona ama wadada laga heli doona mooyaane laakiin waxa muhiimka marka hore soo dhigana sida shaqo kale okay adigu waxaad joogtaa caasimada Tripoli marka Tripoli xaaladda ka war imka dagaaladu mid soo gaareen qaraxyaashii iyo mudaharaadada mid joogsadeen xagee socota xaaladdu والله حالة Tripoli xaafadin kan ku noolahay mudaharaad kuma socon mudaharaadu taagan laakiin waddanka inta بدنكيس تربس معها أنت بدنكيس واحد كتاليم معارض طعنا هستا قاعد سدرودك مترساد راد إنه قالنا تجيبهم كتربس إنك سدرودك كترسادن حالة جد مفيانا واي مهردي أن مدود لجود لي أم با لحرحري وح ما مقاش مسواركتين والله جبت هرتو مو بحنت لي فيش سنة كده وانا بدلوات بتاني بتوب بحنو واحد شرطة حادي بس كل بيان كومر كورو تتقاب عصر حاجة مركرو مروجا قشاف تشري أمبا حادي يس تشري أمبا دكتور سكر تشري أو بطة لقيت الدعية تكينو حاليا يحويان مدن أيوا كانوا سحري سيبت تذكر السوق وطريق استقاء يرقى دبيت هذه دبيت بحدة إسكده داين كتلني وكبارون يعني وحيرك جبت كريستي وبلده هانتيدا كقاعدنا. marka wax shaqooyin marka hore Soomaalidu way shaqaysan jireen ka wax shaqooyin la qabanay ma jirto marka bila lacag ba tihiin sicir barna u jirta cuntadii Soomaha marka hore Soomaalidu waxa ku noolay intaas ku joogtay shaqooyinkaas oo ay dadka Liibiyaanka dadka ku shaqeyn jireen in kana shaqooyinka way istaagan meel loo baxayana ma jirto حوالده يوم حاجة connection حاليا يوتك ميل يو لوس درنا ما شفته ساس ترجع سوالدي ممكن بتعرف هسه
hay-adahan iminka maraykanka xuduudka masr iyo tunisia ay yimaadeen kuwan hay-adahan dadka caawinaya UNT diyaarada maraykana marka dad ma garanaysaa soomaaliya amba afrikaan kaloo dhinaca xuduuda u baxsaday sida caawitimaan u helaan hawlaa wa jiraan soomaali inkastoo maalin hore soomaalida badanatan ilaa shalay ilaa daraad u soo tageen soomaalida tegaysaa xuduudka okay markaas wayna jiraan soomaali ku sugan marka ma aamin ba haddaad israahdiid ka bax taraabiliyo bal dhinaca xuduudkii u baxsayo meelaha maxaa la raaci kara ma baabuur ma soo lugeynaysa wallahi markii hore way adkaysay bixitaankaygu waayo waxaa jiray dad maalmihii hore xaggaas maxaa yaday xaaladda xumeed ee xaggaas xuduud maxaa yaday hayduhu soo degeen dad soomaaliya oo isku day inay ka baxaan oo xabsi la geeyey iyagoon tira ka dhex bixinta magaalada wadanka libiya marka xabsiga ayaa waxaan geliyey maqlay ma dawladda gelisa mise dadkan mucaaridka ah waxaa geliyay dawladda okay waan gartay laakiin anagu warar baan soo gaarin dad soomaaliya dad kale oo afrikaan madow la dildilay wax idinku ma maqashan mise wax warar ma ka haysiin mise telefoonku ma idinkuna daawanaysin dibadda ma bixin walaal telefoonkaan daawanin telefoonkaas ma daawanin mida waa soomaalida terroristigu badankaas ka warqaban wax farso dhibaato maxaa yeelay dee telefoona laga qaadiyo maxaa yeelay dee jidil yaro lagu sameeyay waxa dil xoogan oo lagu sameeyo oo maanta dhakhtar yeelo aan daranay ma jirto waan gartay markaad soomaalida inta joogta Trabili aad sheeda ka garanaysid amba inta ku qaysi kartaa marka xakiyo badan ma dumarna ma isla joogaan iyo ciyaal mise rag baa badantiin wallahi soomaalida meesha joogta rag bay badan yihiin dumarna way jiraan dumar caruur wataa way jiraan dumar waaweyn oo saamaana way jiraan ilaa 500 gaarisa soomaalida Libiya joogta marka ma meel baa ka degantiin Trabili meel soomaalida lagu yaqaan mise dhinac walba meel badan baa ka degantiin wadanka wallahi xaafadooda ka degan soomaalida inkastoo xaafadooda ay soomaalida caan ku yihiin waan gartay walaalayaal yaro ka baahan maxaa ay Trabili soo sawiirayaan ha wala sidoo kale jirta ha ee kala rashadu ku taganto maarifkii dawladda asbaxta ma garatay ha laakiin Trabili isku dhaxeeganiyo ciidan baa meel kasta joogto wax rabsho ka ma jirto laakiin meesha after laba qaad military waxa jooga ciidan hubs hubeysan bando wana wajirta ma bando baa jirta markaa si dadku bixi karayaan ma inka laba cisho oo saddex ma jirto maalmo hore ay bada jirtaan oo soo bixin sagaratan waan gartay meeshii waxaa taalaba dadka meesha wadankaas kale oo dhashay baa dad aad cusriyan ah ha oo dawladda niyo markaa iska xinaa jirnaa ka xinaa aqoonta haystano ama waxa oo arko cusriyan ah moogtay markii hore aad iyo u xawiyeen laga amaan jirnay oo waxa xageynaya oo boorta markaa soo basas oo kale recording qofka mid ka xalo yani suuqska oo saraayo laga qasdan in la niga dadig waan gartay ya ha imikana de markii wararkii ha dadkii chance in ku helo warar badan maqlay oo leeyahay dadkiina waxa la niyad madowga ya waxa doona miska ka sameeyaa ha anigu wararku aan kuma maqalin ilaa 4 madow qof ayaa lagu dilay intay because ay yihiin madow وجه سدود نقول لكن والله بتقرن إيوه إنت متقدر تشوفه واحد أنت قلت له عندك حاجة ثانية لكن محمد حكى المعارض كقبصدين ترى مدقوا ما يكسب بحسنا يعني اللي عن ترابل بيسوا بحسنا يعني مسا واحد والله ندفري إنك بقاس نسوق المعارضة هستا سمار كانوا دقن واحد شغان حادي كتير شغان أو واحد اللي هي markaad fiiriyaan meesha joogay ayaa waa markii soo diray moogta talyaani baa soo diray markii may dal kasta dadkiis waddan kasta dadkiis markaa soo dirto qaadiya okay Soomaalidii markaana xakaa joogtay wax warar ma ka haysan Soomaalida meesha joogtay hawa waxay inta soo joogay ka dib joogaan dibito oo sheegeen oo wax ku dhaada dadka
dalkayga dowlad kama jirto markaa meesha laga qaadan doonaa markaa dadkii shicibka weesha odkaysta way jireen greenih kudhada maraakiibtan qaadanaysaa maxay leeyihin dadkoogii wixii kolaalateen iga yaala wadin qaadan doonaa dibada isku suga waan gartay markaa kuwa Yurub bay wana sugaya noo sidee meesha ku qaadano la shan meesha ka joogay laakiin wax warar ma maqashin in qaar Soomaaliya la xirxiray amba la dilay amba jirdey waxa lagu sameeyay wala qaar Soomaaliya dawladda xataa amni ahaan xidhay wajiro oo jeesh ku jira ma garatay markii hore intuu dagaalku dhacay Soomaa ma markii dagaalku dhacay qaar wadooyinka qabto leeyahay amnigiina la jirta ma garatay waan gartay dawladdu horta dinkiga aanu qandareyn shacabku baa u darashay kulna shacabku si kala wanaagsan shacab xayar suuqa ka martay waan gartay saxba Travelers markaad u soo arkaysaa mustaqbalka inta joogtiin xaaladdu si adkaanaysa misaamka soo dhaamsa sida wallahi xaaladdu waxay ku xiran tahay xaaladda waddanka deegaanka soo taaydan isku diglaad sadradeen qodokiyoon xaaladiisu marba ka soo taraya oo mucaaradkii soo badanayo dawladuna isku xasaysanayso ninka meeshaystay inaan waddanka ka degan halka marnaan wareejinay sadradeed anaguna taas tanaguma jirto inaan ka baxno markaas aan ka tagno mooyaan waxay ka bixi lahayd ma dhinaca badda dooniyaha dadku sugayeen baa raacaysa mise dhinaca xuduudda asleedan baxsada haday si adkaato xaaladda wallahi dooniyo din maanta ku tala jira ma jiro in xadka Tunis la gaaro mooyaan si lagu gaaro lahaa xadka Tunis inteedii jira Travelers wuxuu jiraa ilaa 5 saacadood okay and dawladdu imika ma runba wararka Liibiyiintu leeyihiin dad madow baa u shaqeynaya dawladda dadka Liibiyiinta leenaya wax runo wax cadaynayo idinku ma aragteen indihiina amba ma maqasheen والله واحد يعني ما ترى عم بقرن تذكر تلفزيون وينبو حمد بنيم ومرنيا وايو وحصل لي باسبور سومالي باسبور سومالي سواء كان إمكان باسبور كان أنتم بيانا هنا كيوري عبد الله يوسف هذا دراسة باسبور عبد الله يوسف مش تدخل سومالي دو ودوك تكلم بدون في مية في عران ستيشن ده يرجع قابا حياة قابا إيه توي marka waa baasaboor already iska sii hayay jeelalka meelahan dad maxad jeelalka kale iska yaalay ay dadka idaacada ka tusiyeen Soomaa saasi kula tahay watch baasaboor jeesh iska yaalay ayaa idaacada laga soo deeyay waan gartay waxa warar kale ma maqleen in dad Soomaalidu ay isku ururiyeen safaaradda dawladda Soomaaliya ku leedahay Tripoli idinku ma maqasheen waxa mise inteedii jirta safaaradda Tripoli ku taalaba وجهه سومالي بدن oo guriga ku soo saaray sida xaafad inuu dhow sleepna dhaado Soomaali badan oo guriga ku soo saaray lagu leeyahay madaqadan dadka degan madoob ma ogola ee ka baxa guriga dibadto markay guriga waayaan safaaradda taga safaaradda dhax saxda oo safaaradda hooy u tahay waan gartay raashin iyo caawimada dadkaasi xakay ka helayeen marka hadii Tripoli dagaal ka jiraba wallahi تنو استوى في يروح يستنبو استعمال عيو للسكري. والله أدبي وذاك هذا حالة دومدي